geeridu waa mid ka mid ah waxyaabaha noolo walba ee dhulka saaran uu dhadhamin doono. Tanina waxuu Alle ugu qoray jiinka bani'aadamka. Fakar ahaan dadku waxay in badan iska fogeeyaan geerida iyaga oo sabiranaya in weligoodii dadka kale inay dhiman doonaan. Si kastoo qof waliba fikir ahaan uu u dibdhigta geerida, ugu dambayn qof waliba waa tii haleesha. Mana jirto waddo cilmi ahaan iyo caqli ahaanba geerida looga hortagi karo. Aqoon-yahanada ku takhasusay cilmiga jiinaadka bani'aadamka waxay in badan baaritaan ku sameeyeen unugyada jirka bani'aadamka. Mar waliba ay isku dayaan in baloog walba ay xiraan si ay geerida uga hortagaan. Meel aanan la aqoonin oo cusub ayay wax walba ka bilowdaan. Sidaana unug waliba ugu dambayn waa uu dhintaa. Tanina dhammaan noolayaasha oo dhan ayaa ka wada siman. Unugyada jirka waxa ay u dhintaan si kuwa kale oo cusub ay u imaadaan. Bani'aadamkuna waxa uu u dhintaa si uu ugu gudbo nolosha kale ee xaqiiqada ee weligeed aanan dhammaanin. Mawduuca geeridana waxa uu ka mid yahay mawduucyada dunida oo dhan sida aadka loo baaray, balse aqoonta bani'aadamka uu ka ogaaday geerida aad ayay u xadidan tahay. Haddana ishaarooyin badan oo horay aanan loo ogeyn ayuu bani'aadamka geerida uu ka ogaaday, gaar ahaan baaritaano lagu sameeyay dad ku sugnaa xaalad halis ah oo xilligaa dhiman rabay. Aad ayay u adag tahay mar waliba in dhakhaatiirtu ay helaan qof xilligaa dhimanaya si baaritaan ay ugu sameeyaan. Akhlaaq ahaanna sax ma aha qof dhimashadiisii in baaritaan lagu sameeyo. Qoyska qofka iyo bukaankaba ma aha arrin ay raalli ka noqonayaan. Ka hor inta aanan mawduuca u gudagelin ka hor, waxaa muhiim ah in aan ogaano in geeridu ay tahay marxaladda jirka ay ka baxda ruuxda. Jirka bani'aadamku ma shaqayn karo ruux la'aan, balse cilmiga sayniska principleska aasaasiga ee uu ku dhisan yahay, maadaama ay tahay wax walba oo la arkay oo keliya in daliil laga dhigto ruuxda jiritaankeedii, sayniska uma arko in xaqiiqo ay tahay. Sidaasi darteeda, saynisku waxa uu geerida ugu qeexaa marxalad unugyada jirka howlgab ay noqdeen. Si unugyada jirka howlgab ay u noqdaanna, waxyaabo badan ayaa sababi kara, sida xanuuno, waayeelnimada ama soo gaabnaanshaha tolomeerada unugyada, adkaysi la'aanta unugyada jirka iyo waxyaabo badan oo la mid ah. Xitaa haddii bani'aadamka wax ilma aragto oo xanuun oo dhan haddii uusan ku dhici lahayn, wax waliba oo dhiba haddii dhulka laga qaadi lahaa, sidaana qof waliba haddii uusan weligii xanuunsan lahayn, qof dhaawaca ama xitaa dil oo dhan dhulka haddii uusan ka jiri lahayn, sida nolol khiyaali ah oo wax probleem ah oo dhan dhulka aanan ka dhicin, haddii bani'aadamka nolol noocaasi oo kale uu ku noolaan lahaa, wax waliba ee maanta sababa geerida sida xanuunada iyo iska horimaadyada dadka iyo waxyaabaha la midka ah oo dhan haddii dhulka laga qaadi lahaa, waxaa la isku wada waafaqsan yahay in qofna xilligaasi xitaa geerida inuusan ka badbaadi lahayn. Sababtoo ah noolayaasha oo dhan si ay u dhintaan darteedii ayaa unugyadoodii loo borograamiyey. Ummadihii hore waxa ay aad isugu taxalluujiyeen in ay wax badan ka ogaadaan waxa ay tahay ruuxda iyo sida ay jirka uga baxdo. Xitaa filosoofaradii hore mawduuca ruuxda aragtiyooyin badan oo fakarkoodii ayay ka dhiibteen. Nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee, saddexdii su'aalood ee xujada ahaa ee Quraysh ay weydiisay, taas oo Quraysh ay rumaysnaayeen in nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee in uusan ka jawaabi karin, waxaa ka mid ahaa su'aasha ruuxda. Su'aal qof la weydiiyo su'aalihii ugu adkaa xilligoodii ayay nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee weydiiyeen. Waxaana ka mid ahaa saddexdaasi su'aalood in nebiga uu wax ka sheego qisada dhalinyaradii godka ee boqolaalka sana hurdayay, asxaabul kahfi, iyo qisada ninkii dunida oo dhan qorax ka soo bax ilaa qorax u dhac ku socdaalay, Dulqarnayn, iyo in nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee in uu wax uga sheego ruux waxa ay tahay. Waayo ummadaha adduunka oo dhan waxay in badan isku taxalluujiyeen in ay wax badan ka ogaadaan ruux waxa ay tahay. Qur'aanka Kariimkana saddexdani su'aalood iyaga oo faahfaahsan ayuu ka jawaabay. Ruuxdana waxa uu Qur'aanka Kariimka uu ku micneeyey in ay tahay amarka noolaynta Alle. Waayo suurtagal ma aha anatomiga bani'aadam
aadamka lafaha iyo xubnaha jinka ee isdul saaran in dhaqdhaqaaq nololeed iskoodii inay u lahaadaan. Suurtagalna ma aha, qofna ma filanayo lafo iyo hilib oo keliya in ay ka suurtoodo in ay hadlaan dhaqdhaqaaqaanna sida bani aadam iska socda oo kale in ay noqdaan. Waxaa loo baahan yahay amar lafahani iyo hilibkani ay ku istaagaan, waayo waxaa cajiiba bani aadam ka kooban lafo iyo hilib inuu hadli karo, fakari karana, sidoo kalena uu socon karo, waxna uu aqrin karo. Lafo iyo hilib oo keliya in dhaqdhaqaaq nololeed in ay abuuraan, maadaama wax caqligalah aanay noqon karin. Waxaa loo baahan yahay ee lafaha ay ku istaagi karaanna waa amarka Alle. Amarka Allana Qur'aanka Kariimka waxa uu ku sheegay in ruuxda ay tahay. Qof walibana marka uu dhimanayo, ruuxdani lagu talaalay dib ayay jinkiisii uga bixi doontaa. Waxa uuse Qur'aanka Kariimku inoo sheegayaa si kastoo bani aadamku u raadiya macluumaad badan oo ruuxda ku saabsan in uusan heli doonin ilaa cilmi yar oo xagga ruuxda laga sii mooye. Haddaba bani aadamka intiisii badan waxa uu ka walwalaa ruuxdani marka ay qofka jinkiisii ka baxdo, yacni xilliga geerida maxaa dhici doona. Geeridu ma dhammaadka nolosha ama waa bilowga nolol cusub? Jawaabta su'aashanina waa halka ay ku kala baxeen dadka. Kuwa aanan iimaan lahayn oo geerida oo dhan u arka dhammaadka nolosha wax aad looga cabsado oo aanan fiicnayn ayay geerida u arkaan. Laakiin dadka wanaagsan ee iimaanka leh, si gaar ahna dadaal badan sameeyey, dhab ahaantiina filanayo rajooyin badan, geeridu in badan dadkani kama ay walwalaan. Waxa ay geerida u arkaan dadkani fursad nolosha kale ugu gudbi lahaayeen. Haddaba marxaladda geerida, qofka marka uu sakaraatulmowdka uu ku sugan yahay, horumarka tiknoolajiyada iyo fahamka cilmiga bani aadamka maanta uu haysto, marka la tixraaco qofka maskaxdiisii maxaa iska beddelayo. Waxaa la arkay waxyaabo badan in isbeddel uu ku imaado. Ka hor inta aanan su'aashani jawaabteedii u gudagelin ka hor, in badan oo ka mid ah dadka aanan muslimka ahayn waxa ay sheegaan, gaar ahaan dadka marxaladda sakaraatulmowdka oo kale ka soo gudbay balse aanan dhimanin, hadal intoodii badan ay ka wada siman yihiin, kaasoo ah in ay arkeen iftiin u soo muuqanayo iyo god weyn oo tuneel ah inay ku sii socdeen. Dabcan dadkani maadaama aysan dhimanin balse marxalad dhimashada u dhow ay gaareen, waa hadal badankoodii dadka aanan muslimka ahayn ay ka wada siman yihiin in god tuneel ah iyo iftiin ka soo horbaxay inay arkeen. Laakiin dadkani hadalkoodii daliil ma noqon karo maadaama aysan dhimanin. Waxaase cajiiba iftiinkani iyo tuneelkaniba sheegistiisii in ay ka wada siman yihiin. Si kastoo ay u adag tahay in baaritaan lagu sameeyo maskaxda qof dhiman raba, haddana sanadka markii uu ahaa 2016 dalka Estonia waxaa dhaqaatiir u suura gashay nin waayeel ah isaga oo maskaxdiisii ay ku xiran tahay qalabka EEG in uu dhintay. Tanina fursad dahabi ah ayay dhaqaatiirta iyo dunida caafimaadkaba u noqotay si loo ogaado mawjadaha kala duwan ee maskaxda, gaar ahaan qofka marka uu dhimanayo. Mawjadihii lagu arkay ninkani inta aanan u gudagelin ka hor, waxaa muhiim ah in aan horudhac kooban ka sameyno mawjadaha kala duwan ee maskaxda iyo xilliyada la arko. Maskaxdu waxa ay leedahay 5 mawjadood oo kala duwan: mawjada gamma, mawjada beta, mawjada alpha, mawjada theta iyo mawjada delta. Mawjadahanina waxay isugu xigxigaan hadba sidii loo kala daafuray iyo sida ay u kala awood badan yihiin. Mawjada koowaad ee ugu daran waa gamma, waa mawjad u dhaxaysa 32 ilaa 100 hertz. Mawjadanina waxaa maskaxda lagu arkaa qofka marka uu si aad u weyn u mashquulsan yahay, sida xisaabaad ama marka uu qofka problem kala duwan u xalinayo. Yacni si kooban, qofka marka uu aad u mashquulsan yahay in badanna uu fakarayo, mawjadahani gamma ayaa maskaxdiisii active noqda. Xitaa qofka marka uu riyo uu arkayo, maskaxdiisu maadaama ay mashquulsan tahay, mawjadahani gamma ayaa lagu arki karaa. Si kooban, qofka marka uu soo jeedo uuna wax arkayo, waxna fahmayo ama barnaamij uu la socdo, mawjadahani gamma ayaa maskaxdiisii active ka noqda. Mawjada kale ee beta
waa mawjado maskaxda lagu arko qofka marka uu deganaan uu ku jiro, sida xilliyada nasiinada qofkuna uu degan yahay. Si gaar ah qofka marka uusan walwal, fakar, su'aal isweydiin iyo waxyaabo lamid ahba maskaxdiisu aysan ku mashquulsanayn. Mawjada kale ee alfa waxaa iyaduna maskaxda lagu arkaa qofka marka uu si tartiib ah mawjadaha kale ee hurdada uu gelayo, sida qofka marka uu indhaha isku qabto kadibna mawjada qotada dheer ee hurdadana uusan gelin. Waa xaaladda degnaanshaha farakaansiga maskaxdiisii. Mawjada kale ee theta waa marka qofka si toos ah uu hurdayo balse uusan gelin hurdada qotada dheer ee saqda dhexe. Farakaansiga maskaxdiisuna sidaa ayuu qofku u soo degaa. Marxaladda deltana waa marxalad qofka uu ku guda jiro hurdada aadka u culus. Xilligani oo kalena waxaa aad u adag in qofka si fudud inuu ku tooso. Maskaxdiisii heerka degnaanshaha farakaansigiisu waxa ay gaartaa ilaa 4 hertz. Haddaba mawjadahani oo keliya iyada oo la fiirinayo haddii qofka maskaxdiisii lagu xiro qalabka EEG, waxaa suurtagal ah in si fudud lagu ogaado marxaladda uu qofka uu ku sugan yahay, si kastoo xitaa qofka xaaladiisii uu u qariyo. Haddaba haddii aan dib ugu noqono bukaankii dalka Estonia, dhakhaatiirta maskaxdiisii ka qaaday sawir waxay dhowaan soo bandhigeen sawirkanina wuxuu ina fahamsiinayaa maskaxda bani'aadamka, gaar ahaan qofka marka uu dhimanayo sida signaalada maskaxdiisu ay noqonayaan. Labadani sawirna waxa ay ka kala tarjumayaan labada qayb ee maskaxda, midig iyo bidix. Qaybta hoose ee sawirka EKG waxa uu ka tarjumayaa heerka wadnaha qofka. Signaalada kalena waxa ay macluumaad inaga siinayaan maskaxda qofka iyo xaaladda uu ku sugan yahay. Sawirkani waxa uu si guud u sharaxayaa ilbiriqsyadii ugu dambeeyay ee dhimashada. Bukaankani ilbiriqsyadii u dambeeyay bilowgii waxaa gebi ahaanba joogsaday signaaladii maskaxdiisii. Kadibna 200 oo ilbiriqsi kadib, bukaankii hal mar ayaa wadnaha istaagay. Wadnahani markay istaageen, ilbiriqsyadii ku xigay sida halkani ka muuqata, aqoon-yahanadu xilligani agtoodii qiime aad u weyn ayuu signaalkani uu ku leeyahay. Haddii aad si fiican u fiiriso bukaankani, wadnaha markay istaageen kadib, maskaxdiisii waxaa lagu arkay mawjadihii gamma. Kadibna sida kuu muuqata, tartiib ayay signaalkii u degeen. Haddaba signaalkani waxa qiimaha u yeelaya ayaa waxa uu yahay qofkani ilbiriqsyadii ugu dambeeyay ee nolosha uu ku sugnaa. Maxaa maskaxdiisii signaliskani gamma dib u kiciyey? Waayo signaliskani gamma keliya waxay active noqdaan qofka maskaxdiisii marka ay soo jeedo, sida marka uu qofka wax uu akhrinayo ama uu fakarayo, ama qofka si dhab ah nolosha ula falgalayo. Bukaankanise markii wadnihiisu ay istaageen kadib, in maskaxdiisii signaliskani gamma in lagu arko waxa ay xoojisay oo saynisyahanadu ay tusisay in qofka uu gelayo marxaladda sakaraatulmoodka uu yahay dhimashadiisii agteedii. Baraarug aad u weyn, sida qof caafimaad qaba oo soo jeeda oo kale in uu noqonayo. Weliba bukaankani raboorkiisii la faafiyey waxa uu ahaa bukaan aad waayeel ah. Waxa uu jiray 87 sano. Gaar ahaanna qof maskaxda problems badan ay ka haysteen ayuu ahaa. Ilbiriqsyadii ugu dambeeyay ee maskaxdiisuna baraarug weyn in ay muujisay keliya ninkani laguma arkin. Horaanna dadkii kale oo aad u badan ayaa lagu arkay. Haddaba marka ay dadka dhimanayaan, signaliska maskaxdoodii sida in ay soo jeedaan oo kale, waa maxay waxa sababaya baraarugani weyn, sida qofka indhaha in uu kala qaado oo kale u noqonayaa? Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, markii Abu Salama uu dhintay, waxa uu arkay in Abu Salama uu dhintay isaga oo indhihiisu ay furan yihiin. Waxa uuna nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu ku dhahay, qofka marka ruuxdiisii jirka laga siibo, indhuhuna waxa ay raacaan xagga eegmada ruuxda halka ay u sii socoto. Kadibna nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu isku xiray indhihii Abu Salama. Waxaa sidoo kale Qur'aanka iyo sunnadaba ku soo arooray qofka marka uu dhimanayo xaaladda sakaraatulmowdka in indhihiisii daaha laga qaadi doono. Kadibna qofka waxa uu arkayaa malaa'igaha garbihiisii taagan. Sidoo kale Qur'aanka Kariimka waxa uu sheegay haddii qofka muslim uu yahay qofka dhimanaya,
gaar ahaan qof xagga alle ka sharfan oo la soo dhawaysta haddii uu yahay. Soo dhoweyn iyo farxad iyo nabadgelyo ayay malaa'igta ku soo dhoweeyaan ruuxdiisii. Haddii qofka uu ka mid yahay dadka asxaabta midigtuna, nabadgelyo ayaa u sugnaatay. Laakiin haddii qofka uu yahay mid beeniyey waxyiga, waxaa lagu soo dhoweeyaa biyo kulayl badan. Sidoo kale Qur'aanka Kariimka wuxuu alle uu ku sheegay dadka aanan muslimka ahayn marka ay dhimanayaan in nafta ay ka baxdo iyada oo malaa'igaha wejiga iyo dhabankaba ay ka garaacayaan. Haddaba baraarugani weyn ee qofka marka uu dhimanayo uu gelayo iyo maskaxdiisii oo dib aktiif u noqotaa sida in ay baraarugtay oo kale, ma waxa ay la xiriirtaa aragtida malaa'igta iyo ka bixitaanka ruuxda? Waxaa garan kara oo keliya in sidaa ay tahay alle, balse xilliga sakaraatulmowdka dadka sida hurdo oo kale in ay ka soo tooseen oo kale ayay u baraarugaan. Sidoo kale waxaa la arkay qofka marka uu dhinto durbaba jirkiisii oo dhan howlgab ma wada noqdo, xitaa unugyada jirkiisii waxa ay iska wataan shaqadoodii caadiga, waxa ay sii wataan inay iskoobigareeyaan. Jiinkiisuna daabacadda borotiinada iyo xubnaha qaar waxa ay shaqeeyaan ilaa saacado qofka marka uu dhintay kadib, weliba ilaa 3 maalin. Baaritaan dhowr sano ka hor la sameeyey ayaa waxaa lagu sheegay in jiinka qofka weli in uu shaqaynayo. Intaa kadib ayuu qofka maskaxdiisii iyo unugyadiisiiba qaab aanan dibna loo dayactiri karin ayay u burburaan. Muxtamalanna waxaa laga yaabaa ilaa su'aalaha qabriga ay ka dhammaanayaan in qofka unugyadiisu aktif in ay yihiin. Sida dhabta ahna alle ayaa garan kara. Haddaba si kastoo bani aadamka uusan u jeclayn geerida, haddana waxuu u burgaraamsan yahay in uu dhinto. Tanina waddo looga badbaadi karaa ma jirto. Saynis yahanadii isku day unug oo keliya in dhimashadiisu ay ka hortagaan ayaa la kulmay mucjiso weyn. Waxa ayna xaqiiqsadeen in aanay suurtagal ahayn in geeri oo dhan in laga hortago. Meel weliba marka ay unuga ka xiraan, meel kale oo cusub ayaa aktiif noqota. Sidaasi darteeda noolayaasha oo dhan waxaa loo soo burgaraamiyey in ay dhintaan. Qof walibana marka uu dhimanayo, maskaxdiisii baraarug weyn ayay gashaa. Geerida kadibna qof waliba si kastuu u baraarugi doono. Haddii uusan wanaag uusan horumarsanin qofka, waxba baraarugiisii uma kordhin doono. Qof walibana waxaa sugayo su'aalo si gaar ah loo weydiin doono. Qur'aanka Kariimka wuxuu alle uu ku leeyahay haddii aad u malaysaan in aanan la idin maxkamadayn doonin qofkaa dhimanaya haddii aad awoodaan si aad maxkamadda alle aad uga baaqataan, nafta ku celiya. Waa haddii run aad sheegaysaan. Sidaasi darteeda suurtagal ma aha qof dhimanaya in naf lagu celiyo. Qof walibana waxaa wanaagsan jaaniska uu maanta uu haysto in uu ka faa'iidaysto, maalgashi badanna in beri uu u samaysto, si hadhow dambe isaga oo faraxsan xisaab oo dhan walwal aanan ku hayn si uu u dhinto. Cagsigeedii, qof waliba sida uu maanta isaga nool yahay, saacadaha u dambe ee dhimashada ayuu sidani u soo baraarugaa. Nasiib daro dibna uma soo noqon karo. Shalay aanan ka soo noqosho lahayn ayuu qofkana uu gelayaa. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee markii la weydiiyey qofka ugu caqliga badan bulshada, waxa uu ku jawaabay, waa qofka ka warqaba dhimashada kadib beri waxa ku imaan doona, kadibna maanta naftiisii xisaabiya, dadaal badanna u gala sidii beri uu u badbaadi lahaa.